Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada Dr. Mamow Lectures. Maanta waxaan ka hadlaynaa epidermis. Epidermisku sida aan introductionka kusoo qaadanay waa lakabka ama layerka ugu sareeya layerada maqaarka. Histology ahaan waxa uu ka samaysan yahay stratified squamous epithelial tissue. waa layer aad u qaybsami og qiyaastii 6 ilaa iyo 8 isbuuc kasta waxaa lagu sameeyaa renewal ama waxa loo yaqaano cusboonaysiin ayaa lagu sameeyaa. The principal cells ama unugyada ugu badan ee uu caanka ku yahay layerkan waxaa loo yaqaanaa keratinocytes. Sababta loogu bixiyay keratinocytesna waxay tahay waxay soo saaraan borotiin loo yaqaano keratin, kaasoo qayb muhiim ah ka qaadanayo qaab dhismeedka iyo shaqooyinka maqaarku uu qabanayo. Featureska kale ee muhiimka ah ee layerkan uu leeyahay waxaa ka mid ah in uusan lahayn blood supply iyo nerve supply oo toos ah. Epidermisku waxaa loo sii kala qaybiyaa 4 ilaa iyo 5 layer, kuwaasoo kala ah stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum iyo stratum corneum. Haddii aan fiirino figurkan wuxuu inoo muujinayaa qaab dhismeedka lakabyada epidermiska uu ka kooban yahay. Layerka ugu hooseeya oo kan ah waxaa loo yaqaanaa stratum basale. Sidoo kale waxaa lagu magacaabaa stratum germinatum. waa layerka ay kasoo farcamaan all other layers of epidermis. wuxuu dul saaran yahay ama ku dhegan yahay basement membrane-ka ama xuubkii loo yaqaanay basement membrane-ka. wuxuu ka samaysan yahay single layer of columnar epithelial tissue. layerkan wuxuu ku jiraa mitotic division oo joogto ah. mar waliba cellskiisa maajuur ay noqdaan kor ayay soo aadayaan oo waxay sameynayaan waxa loo yaqaano migration. They move up. waxayna isku bedelayaan layer cusub oo loo yaqaano stratum spinosum. intaanan u gudagalin layerka xiga, marka laga soo tago keratinocyteska oo ah kuwa ugu badan ee uu layerkani ka samaysan yahay, waxaa sidoo kale halkan yaala cells loo yaqaano non-keratinocytes. waxaa ka mid ah cellska loo yaqaano melanocytes oo selkan hadda oo kale midabka madowga ah leh waxaa weeyaan melanocyte. melanocyteku waa unugyada mas-uulka ka ah midabka uu yeelanayo maqaarka jirka bani aadamka. hadduu ahaan lahaa madow ama brown ama white, waxay ku xiran tahay which type of melanin ay soo daayaan these cells. sidoo kale halkan waxaa yaala cells loo yaqaano Merkel cells. ayagana waxay u qaabilsan yihiin sensation, slow touch sensation, gaar ahaan touchka oo xoogaa slowga ah ayay u qaabilsan yihiin. hoostoodii marka basement membrane marka laga soo gudbo waxaa yaalo nerve fibers aad u fara badan. sida introductionkan kusoo qaadanay dermiska hoos waxaa ka buuxa nerve fibers ayaa yaalo. sensationka wuxuu usoo gudbinayaa nerve fiberskaas, kadib sidaas ayaa loogu sii gudbinayaa central nervous systemka. layerka labaad ee ku xiga waxaa loo yaqaanaa stratum spinosum. stratum spinosumka wuxuu ka samaysmaa maajuur keratinocyteskii ka imaanayay from stratum basale markay migration ay soo sameeyaan oo
kor ay soo aadaan waxay iska bedelayaan shapekii columnarka ahaa, waxay noqonayaan flat and polygonal. Then waxay sameynayaan this layer oo loo yaqaano stratum spinosum. sababta loogu bixiyo spinosum waxay tahay spine in anatomy waxa weeyaan projection waa waxyaabo soo taagan weeyaan. This layer marka waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa kamid ah wuxuu leeyahay two projections, intracellular projections oo isku hayaan intracellular structureska ee cellka gudihiisa ku jira, iyo waxay leeyihiin extracellular projections oo isku hayo laba cell kastoo diris ah ama adjacent cellska isku haya. sida noogu muuqata halkan intracellular projectionska waxaa loo yaqaanaa tonofilaments. waxay ka samaysan yihiin protein fibers oo loo yaqaano tonofilaments. waxay isku hayaan cellka gudihiisa structurada yaalo. extracellular structures waa this one, kuwaan weeyaan oo laba cell kastoo diris ah ayay isku hayaan si ay u xoojiyaan qaab dhismeedka layerkan stratum spinosumka ah. layerka ku xiga ee saddexaad waxaa loo yaqaanaa stratum granulosum. kullama cellskii stratum spinosum ay mature ay noqdaan oo further maturation ay sameeyaan, kor ayay soo aadayaan. kor markay soo aadaan waxay noqonayaan more flat ayay sii noqonayaan, waxayna isku bedelayaan cellskan loo yaqaano ama layerkan loo yaqaano stratum granulosum. this layer sababta loogu bixiyey granulosum waxay tahay cellskiisa waxay leeyihiin cellskiisa surfaceka ama oogada sare ayay waxay ku leeyihiin granules. this granules waxaa loo qaybiyaa laba qaybood loo qaybinayaa. qayb waxay ka kooban yihiin waxa loo yaqaano keratohyalin granules ayaa loo yaqaanaa, oo waxay ka kooban yihiin yani waxay soo saaraan protein loo yaqaano filaggrin protein, kaasoo tonofilamentskii oo aan kusoo aragnay stratum spinosumka u bedelayo waxa loo yaqaano keratin filaments. qaybta kale ee granuleska waxay ka samaysan yihiin ama waxaa loo yaqaanaa lamella granules. these granules ayagana waxay soo saaraan lipid material, waxyaabo fat lipid ayay soo saaraan. this lipid material wuxuu leeyahay saddex ahmiyadba ayuu u leeyahay skinka. tan koowaad waxaa weeyaan waxay isku hayaan cellska of stratum granulosum ay isku hayaan sida spinosumka ay isku hayeen protein filamentska loo yaqaanay desmosomeska. halkan waxaa isku haya cellska waa fat moleculeska lipid materialkan ay soo saareen granuleskaas ay soo saareen. sidoo kale waxay qabtaan barrier function ay qabtaan oo waterproof ahaan ay u shaqeynayaan. waxay yani ka hortagayaan in biyaha dibadda maqaarka ka imaanaya inay gudaha usoo galaan, kuwa internally gudaha ku jirana inay banaanka aadaan ay ka hortagayaan, maadaama fatku uu yahay hydrophobic uu yahay. shaqada muhiimadda saddexaad ee fatkan uu qabanayo waxaa kamid ah one of the lipidska ay ka kooban yihiin waxaa loo yaqaanaa dehydrocholesterol. this lipid oo dehydrocholesterolka ah waxaa waaye precursor of vitamin D formation. waa halka ay ka bilaabmayso starting pointiga vitamin D formation. this dehydrocholesterol ayaa waxaa ku dhacayo UV lightka, kadib waxaa loo transport gareynayaa liverka, modification ayaa lagu sameynayaa, waxaa loo transport gareynayaa kidneyga si loogu bedelo markaas active vitamin D.
layerka ugu dambeeyo ee afraad waxaa loo yaqaanaa stratum corneum. waa layerka ugu sareeyo epidermiska iyo guud ahaan maqaarka. This layer waxyaabaha uu featureskiisa caanka uu ku yahay waxaa kamid ah saliskiisa waxaa weeyaan horta waa more flat weeyaan. Sidoo kale waa fully keratinized waaye. wax nucleus ahna ma lahan. sidaas daraadeed layerkan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dead layer inuu yahay, oo just wuxuu sugayaa in lagu sameeyo shading, in lagu sameeyo wax nucleus ma lahan. processka uu ku daadanayo ama shading lagu sameynayo waxaa loo yaqaanaa desquamation ayaa loo yaqaanaa. Still cellskiisa waxaa isku haayo fat cells, fat materialkii ay soo saareen granulosomka ayaa isku haayo, oo thicknesskiisa waxaa waaye waa layerka ugu thicknesska weyn. afarta layer marka la isku barbar dhigo waa layerka ugu thicknesska weyn weeyaan. intaas waxaa dheer waxaa jiro additional layer oo layer dheeraad ku ah afartan, oo meelo gaar ah jirka sida gacanta, calaacasha gacanta iyo cagta laga helayo. layerkaas waxaa loo yaqaanaa stratum lucidum. waxa calaacashan thicknesskeedii more thick adeega ka dhigayo waxa weeyaan waxay leedahay additional layer oo loo yaqaano stratum lucidum. halkaas ayaan kusoo koobaynaa lecturekeena maanta.